anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada kusoo koray dee family problem ee waalidkoogu iyagoo kala tegay soo aan qaaday soo caqliyeystay aniga hooyadii iyo aabahay waxay kala tegeen anigoo 5 sano jira haddaan qisadeeda ka waramo kadib 6 baan ahayn caruura hooyo aaba markay kala tegayeen hooyadii iyo aabahay waxay ku heshiiyeen inaan 6dii kala qaataan hooyana 3 qaadato aabana 3 qaato si loo kala qaybsado caruurta kadib laba wiil 4 baan habla ku nahay marka hore hooya 6 caruur wada haysay oo aaba kala timiday aaba Itoobiya jiray hooyana Soomaaliland Hargeysa joogtay kadib hooyo 6dii markay haysay marka hore iyada waxay rabtay inay 6 caruur wada hayso oo iyadu koriso laakiin adigu problem jiray dartooda aaba wuxuu diiday inuu biilkii bixiyo reerka hooyana taladii waxay ka dhigtay in la kala qaybiyo oo 3na aaba qaato 3na hooyo qaadato kadib hooyadii maadaama iyada haysay caruurta 6daba wada haysay waxay la hadhay labadii hablood ee waaweynaa iyo inantii ugu yarayd aniga oo inana iyo labadii wiil waxaa la nagu daray 3 aaba qaadanay marka dhibaatada ugu badan aniga igu soo dhacday aabahay baa la geeyay waqtigan yaraa aabahay baa la koray maasha Allah si fiican buu soo kariyay waxba i baray laakiin dhibaatada la soo kulmay waxay tahay inan baan hay hooyo la'aan ma noolaa karo guriga aabahay wuxuu ahaa qof shaqeeyo oo subaxdiina maqan habeenkii 9 habeenimo soo hoyda marka waxaan noqotay inaan gurigii anigu keligii joogo oo xaasi aabahay guursaday iyo anigi labadii wiil maadaama wiil lahaayeen labadii wiil aaba ka haysan jiray wiilka ugu weyn isagu guriga ma iman jirin inta badan wuxuu joogay suuqa iyo meheradaha aabo wiilka yaraa aniga guriga ku soo hadnay wiilka yaraana intiisa badan isaga laftirkiisu wiil buu hayaa aabahay wala socon jiray aabahay wala joog jiray kadib aniga soo hadhay anigi meeshii waxaan ku noqday qof tee ku dayacan ilmo yar oo hooyo haysan oo walibana gabadha dareemi kartaa waxbarasho la'aan bay u dhacday inuu aabahay madrasad quraan biigay iskuul ay uma darin waxbarasho kale la uma darin teemaan arag qof attention siiyo iraadiya waxay noqotay maalintii waqtigu intuu ka tiri laga yahay dhan ina waqtiyada roob ku daayaan ina tooxyada ku soo ciyaaro anigoo gabadha habeenkii baa soo hooyanaya tobanka habeenimada doonto waqtigiyada habeen madow ah sida meelaha soo taaganahay dibadaha ugu soo ciyaaray anigoo waliba ilmo yar oo naqan markaas aad u yar 10 sano aan gaadhin baan habeenkii oo dhan meelaha soo wareegaya guriga soo noqonaya waan imanaya qof ismagay weydiiyo waxaan ku maqnaa tee qof ima hagaajiyo timahayga qof ma hagaajiyo jirkayga qof ma hagaajiyo aabay 9 habeenimo imanaya uu seexanaya diwaanin dareemi kartaan anigii baa guriga ku dhex dhibaatooday alxaasin waan weynaaday waan koray waxaan dareemay inay hooyadii joogin oo hooyadii ay magaalada ka maqan tahay aabay waanu sheegay arankii waxaan ku dhaabo waxaan rabaa inaan hooyadii u tago waan hooyadii la joogo maadaama aan inan hay aabahay markii hore uu iga diiday laakiin markii dambe way ogolaaday awowgii hooyadii dhalay baa la soo raaciyay oo Itoobiya soo kaxeeyay Hargeysa keenay hooyadii baan u miday hooyadii markaan u miday hooyadii iyo aabahay heshiiskoodu wuxuu ahaa inuu aabahay 3 haysto hooyadiina 3 haysto laakiin aan waxba ka mooyin oo ilmo yar baan markii kala tagay hooyo markaan u miday habeenkii markaan guriga soo hoyday subaxnimadii gaariga la saaray Itoobiya guriga aabay dib liigu celiyay mar labaad haddana sideedii baa dhacday waxaan hooyadii baa rabaa aabahay dib gaarigii soo saaray Hargeysa dib soo noqday hooyadii baan u miday marka sababtu ku celinayna waa heshiiskan dhex yaala sababtu hooyadii celinaysa waxay ahayd hooyadii aabahay maadaama aabahay diiday inuu biilka bixiyo hooyadii talada waxa ku goystay inuu 3 haysto iyadina 3 haysto aan la isku imanin kadib aabaan u tagay waxaan ku dhaabo anigu hooyo rabaa inaan la joogo ma rabaa inaan gurigaaga joogo iyo xagan way soo diray Hargeysa miday Hargeysa hooyadii markaan u miday hooyadii sideedii bay samaysay oo waxay tiri anigu kuma haynayo maadaama aan aabaa ku heshiinay inuu 3 haysto anu 3 aan haysanaya asuu 3 haysto adigu subaxnimadii baa mar labaad la diray oo gaariga la saaray Itoobiya ku noqday aabay baan u tagay aabay waan diiday inaan la joogo waxaan idhi ma joogay xagan anigu waxaan rabaa hooyadii inaan hooyadii la geeyo aabahay uu diiday wixii hooyada ku soo celisay 2 jeer oo hore mar dambe lagu ma diray iska joog
awowgay hooyaday dhalay baan u sheegan ku dhaab awow hooya rabaa in la geeyo awowna u itiiday waxa la sheegay in hooyaday xaafaday deganayd ka guurtay oo meel kala degtay kadib waxaan sameeyay inaan guri aabahay Ethiopia oo jooga soo baxsado on anigu waliba aad u yar oo kala garanaynin dhulka wadanka magaalada deena xagna Soomaaliland tahay xagaasina Ethiopia tahay oo kala garanay gaariga soo raacay xaajid baan ka soo raacay Hargeysa mid hooyadii waan mid guriga hooyadii markaa ma garanayo hooyadii waxa jirta macluumaad bay hayd iskuul bay dhigi jirtay kadib inaan gaariga markaan ka soo digo inaan Hargeysa imaado inaan gaari iskuulkii magaciisa xasuustaa mugtahay garanaysaa kadib iskuulkii baan imiday iskuulka hooyadii ba macluumaad ka hayd markaa waqtigan iskuulka imanayo hooyadii way maqnayd inuu walaashaygu in iskuulka joogtay iskuulka hortiisa aan imiday anigoo ilmo yara oo magaalada kala garanaynin inna garanaynin iskuulka agtiisaan fadhiistay ardaydii baan u sheegan kudi waxaan rabaa gabadha magaca la yiraahdo in iskuulka laga yeero waa la igu yeeray gabadh walaashay oo weyn bay iskuulka joogtay markaa gabadhii walaashay had markay aragtay way iska ka qarisay maadaama ay iyadu way weyneed way ogtahay xaalka sida jira waan fadhiyay waxa la igu yiri iskuulka wax laga soo baxayaa 5 galabnimo markaan Hargeysa soo galin waa 1 duurnimo 6 subaxnimo aan ka soo baxay Ethiopia ilaa 5 galabnimo waxaan fadhiyay iskuulka hortiisa waliba anoo ilmo yar aad u yar hatta intaan jiro ma xasuusto waan sugay gabadhii walaashayd markay ka soo baxday way iska ka qarisay ardaydii way ku dhaxdhuumatay way iska ka qarisay anoo meesha sidii 5 galabnimo fadhiyo oo sugaya sileyntii ku soo baxaysa intii markay soo baxday ay iska ka qarisay ardaydii way sheekay guudintii aad sugaysay way tagtay xagee marasaayo wadadaas bas ka raacisay tag waan ka daba cararay intii baan u tagay waxaan ku walaal waanige waxaan rabaa gurigii maadaama guriga guurteen aan garan waayay waan soo baxsaday abinay mooyana gurigiisu gabadhii walaashada way soo kaxaysay gurigii bay keentay hooyadii oo markaas la guursaday oo ilmo yar kala haysata saddexdii hablood walaalahayna la joogaan hooyaan u imitay waxaan ku hooyo aabbo waan ka soo baxsaday mara rabay inaan aabbo la joogay waxaan rabay inaan adigu la joogo hooyo waxay igu tiri anigii aabbaha go'aan baan gaarnay inaan isuguna saddexdiisa haysto aniguna saddexdeeda haysto marka aabbaha ku noqo aabbaha la joog aniga hay imanin anuu ninka aan guursaday nolol kala samaystay aabahana ma ogola inuu idin biiliyo maadaama saddexdan kale biilin waayay adiga afar kuma hayn karo adigu waxa dhacday inaan ku dhaho aabaha la garaac oo aabaha loo sheegay inaan kula joogayaan aabaha la wacay waxa lagu yiri inaan tayara soo baxsanaysa waa ilmo yar hayla joogtay biirka bixi maadaama aanu saddexdii kala hayo aabbo wadiiday wuxuu biil ma bixinayo hadaa saddexda caruura aad haysatana ku darisida afarka ga dhigisina waa alxamdulillah hadaanad ku dareynood haynayna iska soo celi hooyaday sidii bay samaysay subaxnimadiiba dib gaariga la saaray Ethiopia lagu celiyay sideedii baa sameeyay wanaamu sugay aabahay iyo reerkii iyo dadkii u dhambeeyay culuubay waan diiday waxaan daan hooyadii baan soo arkay walaaladii baan soo arkay ma joogay magaalada ee waxaan rabaa inaan hooyadii la joogo oo walaaladii la joogo waxaan isku dayay inaan aabay ka dhaadhiyo aabahay u diiday taas wuxuu dhan bil ma bixinayo hooyadiina way diiday inay hayso mar afaraad baan isku dayay waa soo baxsaday waana mid Hargeysa mid hooyadii baan u sheegay wax ku hooyo aabbo waan ka soo baxsaday mana rabin inaan aabbo la joogo ee waxaan rabaa inaan habla la joogo haddii kale xataa lagu celinay aabbo inaan halay raaciyo maadaama inaan keligay ahay meesha ku dhibaatooday ciiditimaaga hagaajineen cidi daryeeleynin aabbayuna gurigii joogin uu yahay qof subaxdii baxaya وهابين ساعة هابين مسوينه adigu hooyaday mar labaad wax isku markii dambe wax isku dayday in aabbahay ku qanciso inuu biilka bixiyo si aan afarteeda hablood meesha uga joogno aabbahay waa la hadlay waa loo sheegay waxa lagu yiri inanta yara soo baxsanaysa
ha joogtay waxbarasho la-aan baa haysee biilka bixi. Aabbay wuu diiday. wuxuu dhaa ma hablaha wada haysanaysaa ama wada isu celinaysaa inantaas adna saddexdaada hayso ana saddexdeedaan haysanayaa. waxaa dhacday inaan aamus waayo oon ooyo oon qayliyo oon diido inaa Itoobiya laygu celiyo inaa guriga aabbahay dib laygu celiyo dhibaato fara badan inaan guriga ka dhex qayliyo maadaama hooyaday reer kale leedahay nin kala qabay. hooyaday xal kale markay weyday labadii hablood eega waaweynaa baa lay raaciyey oo lagu wuri kaxeeya balidiku oo kasoo dhaadhiciya aabaheed inama aabaheed la joogto ama ina bil lasoo diro si waxbarashada nolosha lagu dabaro. aniga iyo labada habloodayga waaweynaa baa Itoobiya ku noqonay. guriga aabbahay baa tagnay. aabbahay baa u sheegnay waxaan ku nidhi aabbo waxaan rabnay inaan hooyadii la joogo. labadii habloodii kale waaweynaa baa la socdaa dee aabbo biilna sii. aabbahay wuu diiday. kadib hooyadii waxay xal ku keentay in aniga ay diido inaan guriga joogo. marka aabbahay iyo hooyadii way tanaasul weyday oo way diiday inay ii tanaasusho ay tiraahdo ilmaha yara soo baxsanaya ee kolba Itoobiya ka imanaya laba wadan soo kala gudbaya iska daa. aabbahayna wuxuu diiday inuu tanaasulo uu yiraahdo ilmaha yara soo baxsanayso hooyadeedu daa. labadu tanaasul waayeen. waxaa dhacday inaan Itoobiya muddo yar markaan joogo haddana soo baxsado oon hooyadii u imaado. waan ooyey waan qayliyey wax kasta waan sameeyey. hooyo waan u sheegay dee heer waxaan gaadhay xataa haan waalan gaadhay hooyadii rabitaankaan rabay hooyadii darteeda. hooyadii haddana waxay isku dayday inay aabbahay dib ku qanciso inuu biilka bixiyo. aabbay waa lala hadlay waxaa lagu yidhi inanta yar joogto bale biilka bixi. aabbay wuu diiday. hooyadii taladeeda waxay ku soo goysay mar hadduu aabbaha diiday inuu biilka bixiyo inaan anigu guriga kasoo gudin. ana waan diiday inaan aabbahay ku noqdo oo waxaan idhi waxaan rabaa inaan hooyadii la joogo. dhibaatada ugu daran markaas igu dhacday. aabbahay wuu diiday hooyadiina way diiday inaan guriga joogo. waxay noqotay inaan igu dhan baa lagu dirayaa oo Itoobiya lagu dirayaa ama Hargeysa gal. ilma yar baan saacid baan u yaray markaas. hooyadii anoo la jooga baa waxaan u sheegay waxaan ku uri hooyo bal markii ugu dambeysay aabbahay waa anigii maqashay inuu diido dee markaas ugu dambeysa. sidii baa dhacdayoo aabbahay baa la wacay waa loo sheegay waxa lagu dhina tiireed inay soo noqoto way diiday. biilka ma siinaysaa guriga ha joogtay bise biilka siin maysid aniguna magaalada ku sii daaya. aabahay wuxuu yiri anu biil ma siinay. hooyadiina waxay tiri hadduu aabahay biilka bixinayn anagu ma haynayo. dhibaatada ugu darnata markaasay dhacday. gurigaan joogaa hooyadii Hargeysaan joogaa meesha ma kala garanayo magaalada ma kala garanayo ilma yar baan ahay dee familygayga kale magaalada degan xataa ma garanayo. Hargeysa iyo Itoobiya dee ma kala garanayo meeshan inay Somaliland tahay meeshan ka mid inay Itoobiya tahay. keliyaata waxaan garanayaa inaan Hargeysa joogo Hargeysa hooyadii joogto. hooyadii waan beriyey waan ooyey waan qayliyey waan u sheegay wax ku hooyo kuma noqon Itoobiya Hargeysana qof kale kama garanayo oo iyadan u imid soo maxay family magaalada degan yahay laakiin ma garanayo. waan isku dayna ku qanciyo hooyo laakiin aabahay iyo hooyadii xumaantii dhexdooda taalay ay hooyadii diiday inaan guriga joogo. aabahayna hooyadii dhibaatadii dhexdiisa taalay buu diiday inuu biilku bixiyo. aabahay wuu tanaasul waayey oo wuxuu garan waayey inuu yiraahdo ilmaha yar iska daa hooyada la joogtay. hooyadiina waxay garan weyday inay tiraahdo inta yar soo baxsanaysa aabeediisa iska daa iska la joogtay. waxa dhacday labadoodii markay diideen hooyo habeen shalay oo kala nimid Hargeysa 10 habeenimo weeyaan. way timid gurigaan oo fadhiya waxay ku tiri hooyo mad ku noqon aabaha
أقول ما يكون نقنع حاجتي هذا ما حد سمينا سميست وهنقول وحربين هذه كل شيء حتى وحبر شيء يقدرين حتى أقول وحبي أنا كعنين حتى بدي بعتقد هاي ينبي لبحيه وأقول لك أنت دي يا وحبر شيء لو بعيه وحبر شيء أنا لسه كده يا أنت أنا لسه كده كليه تنسك تشوف كوريا وديتي هو واحد تري دي بعتقد بدن أبا كاني markii horena aabaaba diidayna inay wada haysto imikana isagaa diiday inuu biilka bixiyo markaa waxaad samayn kartaa inay Itoobiya ku noqotid guriga aabaha iyo inaad magaalada gasho markaa waan yarahay waan diiday inaan ku noqdo guriga aabaha magaalada gasho markaa waxaan ku hooyo ma rabo inaan ku noqdo gurigii aabaha hooyadiina markaa caruur kale dhowr caruur ay dhashay ninkii dambe 3 caruur meelaas buu dhashay waxa dhacday habeen waa markaan ku sheegay shalay oo kale Itoobiya ka yimid habeennimadii hooyadii ilamay hadal kalamnimadii waa tan ii sheegtay diyaaranka ilamay hadal waxa sameeyso kale ma jirin oo ahayn diin iska gidayso diini guriga saarto hooyadii iyo inuu weyno walaashay curadeeda way wada hadleen heshiiskii wuxuu noqday ina caawto marka habeenimo weeyaan inta guriga laga saaro albaabka laga saaro oo la igu dhaw magaalada Galataba sidii baa dhacday hooyadii iyo gabadhii weynayda walaashay hayd way sheekaysteen waxayna ku heshiiyeen in Itoobiya maadaama Itoobiya diiday guriga aabba inaan ku noqdo ina guriga liigu hor iska baxsad magaalada iska kala sidii baa dhacday waan iska waa inan walaashay ah oo iyada taweyn toos weeyar ah bay timday wada markaa guriga laga soo saaray may gurigan ku jira iyo waxay ku heshiiyeen in guriga ka saaraan laakiin aanu ma ogiyo guriga qol kamid ah fadhiyaan inantii walaashayd bay timday waxay ku tir walaalo waadiga diidina Itoobiya lagu celiyo aabana waa ka diiday inuu biilka bixiyo wax kale oo la sameyn karaa ma jirto waan ahayn inaad de maxay dama guri ka tagto ama ina berito la subaxda gaariga lagu saaro waxaan ku wari berito la subaxda gaariga la masaaro kama tagiyo Itoobiya kuma qonayo xagana joogay hooyadii gabadhu noqotay way soo wada hadleen habeennimadii abaaratu habeenimo markay tahay hooyadii inantii walaashay bay soo dirtay waxa ku dharka ay sidatin taad u qaatay baa ka soo xidhay sidii baa dhacday inantii walaashay hada tii weynid ma xitii yarid waan isku fiicanahay xagina joogtaa inantii bay timday waxay u tir walaalo xal kale wala waayay wana hayn ina amba Itoobiya lagu celiyo aminad guriga ka tagto hayban kuuri maxaa la sameeynaya markaa waxay u tir waa tumanka habeenimo adeera guriga imanaya adeer waan ku qaba adeera guriga imanaya intuun adeer iman una ku arag inakan dibada meel buu ku geenayay waxaan ku xigeen tagnaa walaalo manaba meel kala garanaya waxa isku dayday inay fahansiiso waxay ku tirooyo adeer markii guursanayso waxay ku heshiiyeen 3 caruur inay hayso ee kuma heshiinin inay 4 caruur hayso adiguna dawaan ugu soo dhaxdhacday aabban uu diiday inuu biilka ku siiyo marka inaad sii joogto ma noqonayso meel baan ku soo raadinayaan ku geeyo caawa oo iska seexatid marka dad berito Itoobiya ku noqonayso iyo hataa Hargeysa ku joogso
sidii baa dhacdayo inantii walaashay habeenkii tobanka habeenimo gurigeyga soo kaxaysa waxay ii soo raadisay guri family qof family ah oo la geeyo si aan gurigaas u joogo habeenkii waan xasuustaa ilaa waqti dambe bay nagu qaadatay inaan guri lasoo helo la geeyo guri baa la geeyey family haddama rabo inaan tiitalka qofka sheego laakiin family inantii walaashayd gurigii markay geysay way ka timideen aniga keligii guriga ku soo hadhay dadkii xaafadii la geeyey baan la hadlay uma sheegin naar ku saatay laakiin waxaan ku uri waan soo booqday xayabaalan iri gurigii qofkii familygeyga ahaa habeenkii baan la seexday subaxnimadii waxaa laga rabay inaan guriga ku noqo soo maa waxaan ku urigay guriga hooyo ma garanayo dad igu celin lahaydeen xataa guriga hooyo ma garanayo hooyana meeshuu ka gurta ka waran markaa tan idinka iskala kin joogo gabadhi way soo dhaweysay si fiican bay la hadashay iska joog bay u tiri iska fadhi haye sidii baan gabadhii gurigeedii kaga mid noqday la joogto la joogay gabadhii familygeyga ahayd muddo markaan la joogay ilaa 2 bilood si fiican bay la dhaqmi jirtay markii dambe ay aragtay inuun aabaniga soo wardoonin hooyaniga soo wardoonin aabana Itoobiya joogaa wuxuu moodayay inaan hooyo la joogo maadaama Hargeysa joogo hooyana waxay moodaysaa inay Itoobiya ku noqday cidina kaamay soo wardoon hooyaniga ma soo wardoonin aabaniga ma soo wardoonin gabadhi way yaabtay waxay ku tiri hooyadaa meeday way joogtay mayna ku soo raadinayn waxaan ku hooyo waxaan ku Itoobiya tagay sidaasay moodaysaa baan ku oo aabana Itoobiya joogay dee wuxuu moodayay inaan hooyo la joogo adigu gabadhi markay aragtay inayna hooyaniga soo wardoonin aabaniga soo wardoonin waxay la dhaqantay saan qof loola dhaqmin heer han gaari xataa inaan anigu caafimaad qaban jirin wadooyinka ku dhaco marka awood yaraamiya may dee hadal gumaysi qaylo inaa laygu yidhaahdo waxaan sameeye calashaan inaa layla dhaqmo si aan loola dhaqmi karin dee qof bilaadana ilaa goorma noloshaa ku jirtay waxaan ku jiray ilaa intaan kasoo gaadhay 16 sano kadib maxaa xigay dhowr sano gabadhaa la joogay si fiican ilamay dhaqmeen waxbarasho meesha waxbaan barinayaa laakiin waxbarashadan barinaya waxay ahayd waxbarasho aad marka 16 soo gaadhay aad weynaatay caqliysatay si noloshaada isu bedeshay 16 sano markaan soo gaadhay waxaan isku dayay inaan maxay hayday maadaama wax yaro bartay inaan shaqo raadso gabadhin gurigeeda la joogay meel waa ka tegi kari waaye waxbarashada yaran tegayo kusoo noqdo si xun bay la dhaqantay gurigiina waa ka tegi kari waaye magaaladiina ma kala garanay oo meel kaloon tagoon dee waxaan ma garanay waxaan isku dayay gabar baan la xiriiray familygeyga ah oo lambarkeeda raadiyey gabadhii baa lambarkeeda la siiyey gabadhii baan la hadlay gabadhii baan u sheegay ku walaal dhibtaasay haysatee kaale gurigeyga kaxee gabadhii baa gurigeyga kaxaysa gabadhii baa meel geysay guri kale oo iyadu deganaydo iyadu joogtay geysay gurigii baan in muddaa 2 bilood joogay waan ka tegay qof kale familyaanu tagay qofkii familygana la jooga baa shaqo raadsaday markaan weynaaday intaasoo sanadood aabba igama soo wardoonin hooyadiina Hargeysa joogtay igama soo wardoonin
noloshaada nadaas ka wata sidaa doonta meesha ku wadatay saxa noloshaan wato dadka family-ga dib walba ay geysanayaan waxay ka darnay in Ethiopia la wixiliyo maadaama hanan xagaasna gabadha abayaan isku fiicnay aabiyo hooyo labaduba ma reer iyo qoysas kale samaysteen ha abareer kale samaystay waxbarashada ilaa halka ka gaadhay waxbarashada markii hore iskuuliga ma darinba waxa la igu taris madrasada yar yar waxyaabo yar laakiin markii dambe weynaaday baan iskuulka meel fiican ka soo biiray marka adayskii masixida ku aniski adayskii ilaa jaamacad waxbarashada ka gaadhay hada jaamacad dhigta waddigata ha jaamacad dhigta waana shaqaysaa waa shaqada dawladda u shaqeeya laakiin dhibaatada waxa ugu daran waxa dhacday 4 sanadood ba shaqo raadinay afartaas sano shaqada raadinay meela jooga manaysan sidoo kale manaysan bas oo qof family baan joogay bas lagama bixinay dar lama iibin jirin waxaan xidhimanaysan xataa markaan shaqada raadinayay maraan wasaaradda arrimaha gudaha shaqo raadinay subaxdii lug baan ku iman jiray wasaaradda doorkeena lug baan kaga tegi jiray shaqada raadinaysa maxay ahayd doonsiga wasaaradda ka qabato ina wasaaradda shaqeeyo maan rabin ee wax rabay shaqaan wax ku bartay inaa la siiyo muhiimadda shaqo raadinay waxay ahayd inaan noqdo qof taagan maadaama dhibaato badan ku dhex jiro maxaad salaad marka wad qaban karayso oo wasaaradda ka qaban karayso waxyaabo fara badan baan qaban karayo iskuulka waan dhiganay waxna waan bartay computer baan bartay computerka markaan baranayna waxay ka caawiyay nin dawladda shaqo soo doontay computerka isaga ii diray computerka marka hore waxaan u imiday aniguna garanay shaqa dawladda wax laga qabto kadib waan u sheegay xaaladda waxaan ku dhibtaas haysta saaysaasa jirta waxaan rabaa inaad caawiso isaga igu orada computer soo baro dawladda hadday rabto inaad u shaqayso waa inaad wax garanaysaa kadib sidii baan computerka soo dhigtay luuqadda ingiriishka soo bartay isaga iga caawinay intaasoo dhan inaan magaciisa sheega ma rabee kadib sidii 4 sanadood baan raadinayay shaqo dawladdu kaliya haddana shaqo kama raadinayna meel fara badan meelaha beerafatada shirkadaha adu meelo badan ba shaqo ka raadinay ugu dambeyn alxamdulilah hadda waa shaqo tegay waa shaqeeyaa dawladda u shaqeeyaa waxbarashadeedii hooyadii iyo aabbahay ma oga heerkan waxbarashada ka gaadhay hadda jaamacad aan dhigtaa dawladda ayaa bixisa ma oga hooyadii waxbarashadeeda heerka taagsan tahay dawladdaad kale u shaqeysaa dawladdu way fara badan tahay institutionkaad ka tirsan tahay booskaad ka shaqeysa midna la wadaagi kartaa meesha ka shaqeeya la wadaagi karaa waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda warfaafinta inaan ka shaqeeyo oon wasaaradda u shaqo tegana adiga ka mas-uula andara oo adiga ah qofkii iga caawiyey inaan wasaaradda u shaqo tago muddo hadda waxaan jooga 3 sanadooda jaamacadaan dhigtaa maalintan shaqada bilaabay ayay noloshayda dib soo dhisantay alxamdulilah hadda waxbaan bartaa waan shaqeeyaa noloshaydana dib baan usoo dhisay laakiin waxaa jira weli dhalinyar fara badan oo aniga ila mida dhibaatooyinkaa soo maray wax yar baan ka hadlay oo ma rabo inaan faamil ahaan taabto dhibaatooyinka waxyaabaha qaarkood igu dhacay dhibaatooyinka maanta ay haysta ugu badan waxaa kamid ah inaana faamiliga hooyadii garanayn oo maanta walaashay hooyadii aabbahay dhaleen hadda iga hortimaado isma salaano
dhibaatadana iskarana laakiin hooyaabay dhibaatad ka timid iyaga caruurta aabba u dhalay ayada uu dhalay ama hooyada islaanta kale kadib ay iskurseen iyo kuway hooyo odayga kale u dhashay ma isgaranaysana walaaladiin hooyo kuwii ninka kale u dhashay isma garanayno ما نرجع كذي شو لكن أبوكو حاس كلورا شيء نيربان كرنا أنت بدن بكرنا هذا أنت أنا أباهي لتشو أنت مثلا يكسرت توما قاسن وحي قدام بيه وحودا لمكرنا ويدينا عرور وهست لكن مكرنا يوم تريدو ذا مكرنا يوم أربتو ذا مكرنا shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay kamid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka ku shubo $0.5 oo kaliya oo isticmaalaya adeegga idahab